السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada muuqaal kale cusub muuqaalkan maanta waxaynu booqan doonaa gobolka Xinjiang ee dalka China halkaas oo ay ku nool yihiin dadka laga tirada badan yahay ee muslimka ah ee goorka loo yaqaano gobolkan dad yar ayaa loo ogol yahay inay booqdaan ninkan ayaana tagaya maanta oo soo booqanaya gobolkaas China ku yaala waxa degan 12 milyan oo ah dadka laga tirada badan yahay ee muslimka ee goorka loo yaqaano dadkan muslimka ayaa iskugu jira dad Chinese oo dhalada iyo waliba qaar kale oo asal ahaan awooyashooda ka soo jiroodeen bartamaha Aasiya halkan sida ku soo degay waqti xaadirkan China waxa uu saaraya cadaadis aad u fara badan dadkan iyo gobolkan ninkan maanta wuxuu meeshan u tagay inuu soo tabiyo xaaladaha kala duwan ee ka jira gobolkaas iyo sida dadka ay goor ku nool yihiin ugu horreyn daba ninkan safarkiisa waxa uu ka bilaabayaa magaalada Kashgar magaaladani waxay marahayd magaalo ku istaago wadada Silk Road loo oran jiray taasoo ahayd dariiq ay maraan alaabaha iyo badeecadaha iskaga kala gudbinayo China ilaa Yurub ninkan maadaama wadamo fara badan maray waxa uu sheegayaa inuu marar fara badan raadin jiray inuu soo booqdo galbeedka China oo uu soo tabiyo nolosha iyo waliba dhaqanka dadkan hadaba magaaladan subaxa ugu horeysa ee soo kaco wadooyinka suuqa ayuu imanaya ugu horeyntan waxa uu arkayaa roodhi lagu sameeyo qaabkii qadiimiga ah qaabkan oo laga isticmaalo dhammaan bartamaha Aasiya sidoo kale wuxuu halka kula kulmayaa wiil dhalinyaro oo isaguna sameynaya ice cream taasoo uu sheegay ninkan inuu ku soo arkay qaabkan oo kale qaab lamid ah magaalada Kabul ee Afghanistan oo soo maray ninkani sidoo kale markuu wadooyinka maray waxa uu arkayaa far darbiyada ku qoran taasoo ku sheegay inay tahay luqadii goorka oo laakiin loo isticmaalay xarfaha af Carabiga oo goorku iyagoo luqadooda qoraya ay sidoo kale isticmaalaan xarfaha af Carabiga kadib ninkan uu soo soconaya waxaan ku arkay magaalada bartankeeda taalo weyn oo loo sameeyay ninkii Mao Zedong loo oran jiray ee China soo xukumi jiray ninkan oo China aad looga aaminsan yahay maadaama kamid ahaa aasaasyaashii dalka China kadib ninkan waxa uu soo helayaa nin u dhashay gobolkan goorka kaasoo soo kala tusi doona magaalada iyo dadku sidoo nool yihiin laakiin wuxuu codsanayaa in wajigiisa qariyo maadaama cadaadis fara badan uu saaran yahay gobolkan kadib meesha goor isu geynaya waxa weeye amaba uu tagaya ninkani wasiirada xoolaha oo lagu iibiyo dhammaan xoolaha kala duwan ninkan wuxuu sheegay inuu ku soo arkay seelidan oo kale wadanka Mauritania taasoo uu soo arkay seelida geela lagu iibiyo seelidan gudaha ayuu soo galay halka xoolaha lagu kala gadanayo waxaanu arkayaa in meesha uu joogo nin isagu ka shaqaysta inuu idaha baridooda inuu dhagorta ka xiro si ay baridoodu soo baxdo kadibna si fiican loogu gato qaabka seelidan lagu kala ganacsanayna waxaan oran karnaa waa qaabka Soomaalida laftirkoodu xoolaha u kala iibsato labada gacmood baa la isqabsanaya kadibna heshiisku halkaas ka dhacaya ama halkaas lagu heshiinaya lacagtana sidaas lagu kala qaadanaya ninka laftirkiisa nin baa la heshiinaya oo ka iibinaya oo handshake ku sameynaya isagoo gacanta ninka kula heshiinaya kadibna wuxuu iibinaya meel kale oo gabi ahaanba loo dhisay dadka dalxiisayaasha ama touriska halkaas oo lagu sameeyay waxyaabihii qadiimiga ah ee dadkan lahaayeen sidoo kale dukaamo fara badan oo cusub oo dadka dalxiisayaasha kaliya loogu talagalay ayaa la geenaya ninkan sidoo kale halkaan wuxuu ku arkayaa magaalo qadiimiya oo loogu talagalay inaan la taaban kumanaan sano jirta museum ahaan ayaana loo daayay waa magaalo qadiimiya oo laga guuray si ay dadka dalxiisayaasha soo booqdaan inta kadib ninkan waxa uu imanayaa masaajid aad u qurux badan oo ku dhex yaala magaalada Kashgar masaajidkan oo la dhisay 1442 meeshan ayaana meel isugu jirta masaajid meel carruurta wax lagu baro meel ay ku ciyaaraan iyo waliba meel quraanka lagu barto masaajidkan ninkan waxa uu sheegay in waqtiyada Ramadaanta iyo waqtiyada Ciidda dad 20 kun gaaraya inay ku tukadaan waana masjid jaamici magaalada ay oran karnaa inta kadib ninkan waxa uu sheegay in ninkii uu shaqaaleysiis uu magaalada soo kala tuso oo meel fara badan u diidayo maadaama uu baqanayo kadibna ninka la ayuu la heshiinaya ninka kale ayaana magaalada soo kala tustoona qaybaha kala duwan ninka YouTuberka isagu waxa uu rabay inuu meel kala duwan oo dadkan dalxiisayaasha kaliya aan loogu talagalin inuu tago ninkii kalena inta dalxiisayaashu ku warwareejinay laakiin way isfahmi waayeen aakhirkii wayna kala yimaadeen ninka kale waa nin furfurna xataa kamarada ogol isaga ayaana soo kala tustoona qaybaha kala duwan ee kala magaalada marka ugu horeysana wuxuu geynayaaba hodheel aad u qurux badan oo cajiiba ninkan wuxuu sheegayaa inaan hodheelkan oo kale ka filayn inuu magaalada Kashgar ku yaalo hodheelkan ayaana qaybta dadka lacagta lahay galaan sidoo kalena ninkan cuntadiisa marka loo keeno hodheelka uu ka helaya maadaama uu gaajoonayay ninkan wala Mareykanka ku arkayaan cuntooyin fara badan baa loo soo buuxinayaa oo miiska loogu soo buuxinayaa ninkan wuxuu sheegayaa cuntadan inay tahay cuntadii ugu fiicneed ee intii China joogo cunay raayso kala tusay magaalada way soo kaxaynayaan waxayna keenayaan suuqa habeenkii ninkan dadka wuxuu sheegayaa inaanay la yaabin inay wali iftiin tahay laakiin saacaduna ay 10kii tahay 10kii habeenimo sababtoo ah China hal time zone ayaa ka jira oo magaalooyinka oo dhan saacadaas ay wada ahaanayaan caasimadda China Beijing ay tahay kadib ninkan wuxuu tijaabinayaa cuntooyinka street foodka suuqa aad u cajiiba oo cuntooyin fara badan yaalaan ayaanu soo dhexgelayaa sidoo kale halkaan wuxuu kala kulmayaa dad fara badan oo igoora dhammaantood waa dad friendly oo ay soo wada dhaweynayaan tuyarba xataa la sheekaysanaysa iyo laba gabdhood kadib qaar ka mid ah cuntooyinka meesha yaala ayuu tijaabinayaa waanu ka helayaa laakiin ninkan wuxuu kaloo la yaabayaa dadkan meesha ku sugan inay kala wada duwan yihiin
oo dadka qaar European la moodaba nin buu ku qabanaya wajigiisa European u egyahay qaar kale Turki u egyihiin kadib waxay iska cabayaanba rumaal la shiiday laakiin ninkan wuxuu sheegayaa marka dambe in sida caadiga China meel kasta tagto booliis uu ku eegayo laakiin halkani aad uga xaq jirto laba nin oo booliis ku qabanaya meesha ilaalinaya ninkani kadibna qaar kale jaasi ay soo marayaan baan uga helaya sidoo kale waxa uu la yaaban yahay meeshan inaan wax fooriyaan ama dad meel kale ka soo jeeda aanu ku arkin ilaa imika dadka meesha uu ku arkay in Igor iyo Chinese ka kale yihiin habeenka ugu horeeya markuu cuntooyinka soo tijaabinay ninkan sidaas ayuu iskaga soo hoyanaya inta kadib ninkan subax dambe uu soo toosaya waxaan sheegayaa in maalintan xigta aan rabin inuu ku meeraysto meelii uu soo marmariyay magaalada dhexdeeda iyo dukaamadii iyo dhismayaashii wixii farbadnaa magaalada buuq ahayd inaan rabin maanta inuu soo booqdo laakiin uu maanta isku dayayo inuu si dhiibliya u waraysto dadka Igorka sidii u nool yihiin dhaqankooda sida ciyaalkooda u quudiyaan waxyaabo soo farbadan inuu maanta soo eegi doono inta kadib gaari taxi ayuu kareysanayaa si uu magaalada ugu soo wareejiyo oo meel fog magaalada uu soo tuso inta kadib ninkan taxiga waxa uu geenayaa ninkan xaafad kale oo magaalada ah oo ka fog agagaarkii suuqa iyo wixii waayo ninkan Mareykanka isagu waxa uu rabaa inuu xaqiiqooyin farbadan soo ogaado oo si dhiibliya dadka u soo waraysto dhismayaashan iyo waxaan uu duubanayay waxa 100 magaalo kale ayuu ku soo maray laakiin wuxuu rabaa in dadkan Igorka waxa laga sheegay si dhiibliya uu soo waraysto waqti gaari 40 mirir ayay magaaladii Kashgar ka soo socdeen oo ninka taxiga uu soo waday iyaguna soo gaaray meel kale oo ka duwan meelii hore ay u arkeen dadka ku nool yihiin dad kamarada soo dhaweynaya aad friendly ah oo dhaqanka iyo culture-ka uu ka muuqdo kadib ninkani magaalada ayuu dhex galayaa waxaan arkay khudaar fresh oo wadada lagu gadayo shamaam iyo waliba xabxab farabadan meeshan aad ayuu uga helaya waxa la fadhiisanaya odayaal xabxab iibinaya iyo waliba shamaamkaas iyo xabxabkaas ayaan la cunaya ninkani wuxuu sheegayaa in aad uga hinaasiyay odayaashan jawiga degan iskaga jira ee waliba khudaarta fresh ka ku raaxaysanaya magaaladan kalena wuxuu ugu yimanayaa masaajid kale isagoo sheegay in halkan ay tahay meelaha ugu barakaysan marka la joogo gobolkan Igorka waxaanu sidoo kale sheegayaa in markii ugu horeysay uu arkayo meel uu ka muuqdo dhaqanka iyo culture-ka Islaamiga ah intii uu joogay waxaan oranayaa imika ayaan dareemayaa dhaqanka iyo culture-kii dadka Igorka ee saxda ah markuu magaalada soo dhex maro dad iska ganacsanaya xoolahooga iska iibsanaya sidoo kale wuxuu aad uga helayaa in dadku ay yihiin friendly oo aan ku qasbin wax qasab ka iibsado ama baan ku soo yaacayn sidoo kale ganacsiga ugu badan wuxuu ahaa ganacsiga xoolaha qof walba riyaayo meesha ku iibinaya ama xoolo kadibna wuxuu la kulmayaa qaar yar oo iskuul iyaguna ka soo rooxay oo shandadooda sita kuweerna da'dooda iyo waxaas ay weydiinaya kadib ku yar oo ka mid ah ku yar iskuulka ka soo rooxay ninkan soo raacayaba waxaanu ninkan wax ka siin doonaa hoteelka ugu jecel yahay magaalada si uu wax uga cuno laakiin intaanu ka yar kaxayn wuxuu soo eegayaa suuqa magaalada isagoona soo gadanaya koofiyad dhaqameedka Igorka isagoona sheegay sababta uu iibsaday inay tahay maadaama markaad xidhan tahay koofiyad dhaqameedka ay dadku ku ixtiraamayaan inta kadib magaalada ay soo dhex maraya waxyaabo lagu iibinaya ayuu eegayaa kadibna ka yar ayuu hoteelkii keenaya hoteelkii cuntada macaan laga cunayo ka yar jeclaa cuntada ayaanu la cunayaa ka yar sidoo kale ka yarna uu yar warwaraysanaya ka yar wuxuu sheegeen luqadaha uu ka hadlayo tahay Igorka iyo Chinese-ka sidoo kale kelmad Englishna uu garanayo marka dadweynaha maxaad noqonaysaa uu ka oranaya ka yar wuxuu oranaya hotel baan furanaya bariiska iyo hilibka lagu kariyo ninkana wuxuu leeyahay biib cuntada meesha taala iyo sidoo kale duwan tahay dhinaca wuxuu ka arkay bariiska iyo hilibka la isdhex galiyay sidoo kale hilibka la dubay ee ursha la dhex galiyay ay ku helaya kaasoo sheegaya in dhammaan Asia dhan laga helay hilibka la dubay marka dambe hotelka ay ka soo baxayaan waxayna soo macsiinayaan ninka hotelka haystay ka yarana uu soo baxaya waxaan ku oranayaa soo madkelin cuntadan ku siiyay ka yarna uu qoslaya kadib ka yar waa soo kaxaynaya mar labaad wuxuu iibinayaa lax si walaasho guriga joogtana ay wax wala qaybsato oo gurigooda loogu cuno waxaanu aadayaa suuqa xoolaha ee uu markii ugu horeysay booqday si uu markan lax soo iibsado kadibna laxdii doonaya ayuu dooranayaa ku yar u dooraya ugu dambeyntina laxdii waa laga iibinayaa $200 baa laga siinaya oo dhigmata 1500 yan oo lacagta China sidoo kale waxaa qosol ahayd marka xoolaha la kala iibsado in gacmaha la iska salaamo ninkii laxda ka iibiyo uu sii deyn waayaba ninkan gacantiisa markuu laxda soo iibsadana gaadhi ayaa loo soo saaraya waxaan u geenayaa ki yar iyo reerkoodii isagoo sheegaya dhaqanka meesha markaad qofka xoolo u geyso inay uga dhigan tahay adigoo lacag siiyo oo kale sababtoo sidoo sameeyay tahay inuu mahadnaqo iyagana ay wax weyn noqon doonto laxda loo geeyay reerka in albaabka ku qaraacayaan kadibna laxdii ay siinayaan islaanta ay ka furisa iyadoo qaadin waayay lax loo keenay ninkuna sidoo sheegay wuxuu dhinka soonanis luqad garanayn haddana waxaan dareemayaa in aad uga heleen oo ay u qaadin waayeen in lax dhan iyaga u keenay islaanta wajigeeda iyo waliba dhammaan familka oo dhan waxa laga arkay in aad ugu farxeen sababtoo ah ninkan cadaanka ay garanayn kama filin inuu laxdan u keenayo runtiina dad iska masaakiin ay ahaayeen qoys faqiiriin ay iska ahaayeen wayna kaga dhacday baan oran karnaa ninkan sidoo kale ninkan waxa uu sheegayaa markuu dhexda soo socdo ee reerka ka imaado in waxyaabaha fiican aad samaysay adiga dib kugu soo noqonayso marar badanna loo baahan yahay in dadka wax ka shato si adigna dib kugu soo noqoto
isaguna uu aad ugu faraxsan yahay inuu reerka caawiyey iyo weliba inuu halkan joogo oo uu la kulmay dhammaanba dadka magaalada dad wanaagsan oo aad u soo dhaweeyeyna ay yihiin. waxaanu sheegayaa sababta uu halkan u yimid inay tahay inuu dadkaa barto, dadkaa cusub, sidoo kale ay isdhex galaan, dhaqamadooda uu barto, isaguna iminka uu aad u faraxsan yahay maadaama waxyaabihii uu u baahnaa uu helay. ugu dambayntana muuqaalka ninkan wuu soo xidhaya. waxaanu sheegayaa in gobolkan Xinjiang ee dadkii goorka ku nool yihiin uu yahay meelihii ugu adkaa, sidoo kalena ugu xiisaa badnaa ee uu booqday, isagoona sheegaya inuu aad ugu faraxsanaa suuqi weynaa uu ku booqday magaalada Kashgar, dadka aadka friendly-ga u ahaa uu la kulmay iyo weliba siday u adag yihiin ee ay nolosha ula halgamayaan dadkan iyo goorka ah, in isaga iyo dhammaanba dadka daawanaya ay u muujisay dhinaca kale oo ka mid ah gobolada China iyo weliba siday dadku u nool yihiin. waxaanu sidoo kale sheegayaa maadaama meelo fara badan oo ka mid a dadkii goorka uu soo maray in waxyaabo fara badan oo aanu hore u aqoon uu soo arkay, dhaqamadooda iyo noloshoodana uu si fiican usoo kala bartay intaa uu joogay. ugu dambayna haddaba saaxiibayaal, haddii aad muuqaalkan ka hesheen idinka laftarkiinu waxyaabo fara badan aad ka barateen, waxaan idinku codsanaa inaad nagu soo biirtaan, aad subscribe noo saartaan, sidoo kale fideoganna like ta saar saaxiibayaal. aad baad mahadsantiin.